ninkan dhalinyarada ah waa Muxidiin Warbaacshadoor waxa uu saacado ka hor ku magacawnaa agaasimo ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA laakiin saacado ka hor ayaa xilka qaadis lagu sameeyay waxaana mas'uuliyadiisii loo dhiibay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir sargaal marar kala duwan soo maamulay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waa Saadaq John oo hadda ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya haddaba madaxweyne xasan oo talaabadan qaaday iyo Muxidiin Warbaacshadoor xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeyay ka hor xilka qaadistiisan sidee ayuuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu abaalacay sargaalkan dhalinyarada ah ee muddada dheer ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA soo dhawaada daawadayaal macluumaad arintaas ku saabsan ayaan doonayaa muuqaalkan inaan idin kula wadaago inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed marka ay dibad joog yihiin oo ay raadinayaan in ay qabtaan mas'uuliyadaha ugu sareeya ee dalka waxa ugu badan ay u baahan yihiin waa in amnigooda la ilaaliyo ama laga ilaaliyo maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab oo ay beelaha u noqon karaan xilliyada qaarna dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sareysa ayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed marka ay dibad joog yihiin u arka in ay caqabad ku yihiin oo ay saameyn karaan mas'uuliyadooda sidaas daraadeed xaalado kala duwan oo amni ayay madaxda qaranku ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed xilligaasi wajahan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka hor inta aanu mar kale hogaamin dalka waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta mucaaradka ah ee si weyn ula dagaalamayay dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isku dayo badan ee dawladdii Farmaajo isku dayday in ay amniga madaxweynaha saameyn ku yeelato sidaas oo kalena ay marar kala duwan weerartay goob uu ku sugnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilliyadaas madaxweyne xasan uu wajahayay duruufaha amni waxa markaasi difaacayay dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyaradaasna waxa ugu horeeyay taliye ku-xigeenkii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Muxidiin Warbaacshadoor waxa uu ka mid ahaa saraakiishii markaasi madaxweyne xasan difaacayay ee intii badbaado qaran madaxweynuhu uu abaabulayay mucaaradkana ku ahaa dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhalinyaradii markaasi diyaar ku ahaa naftooda inay u huraan marar kala duwan oo madaxweynaha isku day amnigiisa lagu dhibaateyn lahaa lagu soo qaadana waxa uu Muxidiin Warbaacshadoor saraakiil kale ay ka mid ahaayeen kuwa badbaadiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa sidaas oo kale tusaale u soo qaadan karnaa weerarkii dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku qaaday hoteelka la yiraahdo Maa'ido oo ay xilligaas ku sugnaayeen madaxweyne xasan iyo sidaas oo kale madaxweyne Shariif Sheekh Axmed Muxidiin Warbaacshadoor saraakiil kale waxay ahaayeen kuwa u taagnaa in aan la dhibaateyn madaxdii qaranka oo madaxweyne xasan xilligaas uu ka mid ahaa ugu dambeyntiina madaxweyne xasan ee mucaaradadiisii waxa ay dhaxal siisay mar kale in uu markaasi hogaamiyo dalka oo doorashadii ugu dambeysay uu ku guuleystay haddaba intaasi waa taariikhda Muxidiin Warbaacshadoor laakiin madaxweyne xasan hadda maxaa ayuu sameeyay isbeddelka uu sameeyay samaxay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud saacado ka hor xilka qaadis ayuu ku sameeyay taliye ku-xigeenkii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Muxidiin Warbaacshadoor waxaana uu xilkiisa ku wareejiyay ama ku bedelay xildhibaan Saadaq John oo isagu marar kala duwan hay'adda NISA saraakiisheeda ka soo mid noqday laakiin xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu mucaaradka ee dawladdii madaxweyne Farmaajo ka mid ahaa ee hogaaminayay isku dayo marar kala duwan lagu soo weeraray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ugu horeeyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xilligaas Saadaq John oo madaxda qaranka weerarayay Muxidiin Warbaacshadoor saraakiil kale waxay u taagnaayeen badbaadinta madaxweyne xasan iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed Saadaq Johnna iyaga ayuu markaasi dhibaato ku ahaa sida taariikhdu ay xusayso laakiin madaxweyne xasan waxa uu markaasi xilka qaadis ku sameeyay sargaalkan dhalinyarada ah waxaana uu ku bedelay sargaalkan qofkii uu ka badbaadinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee muddada dheer uu u taagnaa in naftiisa uu huro iyadoo taasi ay muujinayso abaaldarrada siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo marka ay duruufaha adag wajahayaan in ay u baahan yihiin dad ay markaasi jarjaro ka dhigtaan laakiin marka ay mansabka ay doonayaan gaaraan aanay xasuusan dhalinyaradaas marka laga tago Muxidiin Warbaacshadoor dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dawladdii markaasi madaxweyne Farmaajo muddadii ay jirtay taagnaan garbaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan hadda ka mid ahay nidaamka dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwa faraq ku tiraysa oo markii madaxweynaha dib loo doortay ka mid noqday nidaamkiisana mar kale ayuu madaxweynuhu xilka qaadis ku sameeyay iyadoo oo meelihii uu ka qaaday uu ku wareejiyay xubno dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka tirsanaa
sidaas oo kalena dhibaato ku haya siyaasiyiinta mucaaradka ah waxaana xubnahaas ugu horeeyay Saadaq John oo hadda mar kale hogaaminaya nabad sugidda Soomaaliyeed ama kamida saraakiisha ugu sareysa oo maadaama loo magacaabay talo ku xigeenka NISA taasi dabcan waxay muujinaysaa in dhalinyaradu markasta ay beelahda u yihiin siyaasiyiinta xildoonka ah iyaga oo difaacaya siyaasiyiintaasi qaarkood ay naftooda ku waayeen